wareegay oo gilgilay oo qabsaday madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyada oo dhammaan dadkii mucaaradka ku ahaa ay jilbaha haystaan oo ay leeyihiin waanu khaldanay naga raali ahaw Muuso barnaamijkana waxaan idin kula wadaagi doonaa wajiyadii soo dhaweeyay oo ahaa kuwii ugu darnaa Muuse Biixi 5 sanadood ee la soo dhaafay Cabdiraxmaan Ciro oo looga adkaaday qulubta shacbiga Somaliland iyada oo markaasi Muuse Biixi ilaa xilliga la moodo inuu isagu madaxweyne Somaliland ka yahay Muuse Biixi waa mid kamida madaxda Soomaalida kuwa ugu taageerada badan dhanka baraha bulshada iyo shacbiyadaba waxaana taas ku cadeynayaa page-kiisa Facebook-ga Syria kaliya waxa ka horeeya madaxweynaha Soomaaliya ee hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qofka labaad ee ugu taageerada badan Soomaalida waa Muuse Biixi Farmaajo bas ka horeeyo waxaana ka sameynay isbarbardhigga barta gaarka ah ee Facebook-ga anu ma garan karo sababta ma taqaanay ay ku dhacday laakiin si madax badan buu Muuse Biixi ka saameyn badan yahay kagana taageero badan yahay gudaha Soomaalida hal qof baana ka sareeyo waa madaxweyne Farmaajo bas markaynu fiirinayna shacbiyada waa qofka labaad oo ku soo xiga soo dhawaada dhamaantiin warbixintan iyo muuqaalkan waxaan ku dul istaagi doonaa isbedeladii ka dhacay Somaliland sanad iyo bar kadib halkee marayaan Cabdiraxmaan Ciro oo fashil qarka u saaran dad badan ay soo jeedinayaan in uu iscasilo oo xilka baneeyo sababtana waxa weeye waxa mar kasta oo tallaabo qaado kor u kacaysa taageerada madaxweynihii hore ee Somaliland ninka la oran jiray Muuse Biixi Cabdi ninkan waa Liibaan Cadaala waxaan idin tusayaa laba muuqaal oo xataa ku nasabcayay Muuse Biixi iyo maanta waxa ku dhacay gaabu yiraahdo landeeran gumeynaya oo wadka u xukumaya oo 400 oo gura laga ooyaya oo ayadii iyo isagii aabihii baa beenaanaya laha wala beentiisa waa beentiisa weeye waa kayna dhageysanayee nacdal baa kugu taala beenaale alayna naclata allahi ala alkaadibiin beenaalayaasha nacdal baa ku taala hadaad maqlaysaa caawana weyn isku sugaynaa iskansiina biixo maxay isugu meeraysan 20 jir baad ku ciil bixi weyday 5 jir markay cadar kugu qaadaad ku ciil bixi weydo jingadii Jabuuti lagu la qaxay qasnadaha raatiya taariikhda ku gubaysaana taa weeye 40 jir baad tiri anigoo wax dili kara duca qaadan maayo liibaan oo kana caweegna waa dili weyday alinta beritola astaan qaran baa imanaysa ninkii sumcadda ku lahaa baa imanaya nin reer Hargeysa baa imanaya oo ay iska dhaleen daanta airportka iyo daanta waxa weeye dekada qalalan ay iska dhaleen baa imanaya nin labada xaafadood ay iska dhaleen baa imanaya xaqlihii iyo baalabeydkii iyo mulkiilihii magaalada Hargeysa imanaya ee abti adeer labada daamood lagu oranayay marka abti adeer ayalba maalinta soo baxa lama mid ah dadka kala ninkani waa mulkiilihii magaalada Hargeysa وموسى بيحي عبدي مقع مسكين لقما اها أبكر موسى حلدين سمطر با اسكا دلay beelaha ciida gale habar jecelo iyo samaroon oo xilligan Muuse Biixi jilbaa haysta maxay ku dhacday soo dhawaada dhamaantii aad baad u mahadsantii aan ku bilaabo horta Muuse Biixi waa loo shiday maanta shacabka isagu muusan oran soo dhaweeya maalin dhaweytu tallaabo uu qaaday Ciro baa waxay keentay in shacabkii Somaliland maanta xataa waxa la arkayay ama la sheegayay dad baabuur ka soo kireysanaya Ceerigaabo ilaa iyo Boorama say u soo dhaweeyaan Muuse Burca iyo Berbera ay iska dhaaf waa Ceerigaabo ceel afweyn iyo og baa dadka iimaanaya say u arkaan Muuse Biixi wuxuu soo bandhigay مسرحيات aan inaba caadi ahayn dadkana isagu uma yeerane Ciro u yeeray dadka maalin la wito garoonka buu ku qashqashaaday madaxweynaha hore ee Somaliland buu ahaa maamuus buu ka mudnaa in la darajeeyo buu ka mudnaa isagoo garoonka sii galayo ayuu mataqaanay khashkhashaaday oo uu mataqaanay rasaas kor ugu riday taas oo keentay
in taageeradiisii iyo taageero uusan lahaynba uu cira gacantiisa ku sameeyo maxaa ka dhashay bal la arka halkan maanta يا شو نوية إنك أبتي وهاي أبتي نولو بالله ما نولو أبتي قول لي يا قمنيو بل ما تام بابتي كم مغنى ما تشوقين ما أنتي إن يا كيف هيموك وحبريان هو مغنى هذا waxaa xusid mudan in dhammaan wajiyada soo dhaweynayo Muuse Biixi ay yihiin wajiyadii ugu adkaa ee uu ka hortagay sanadihii la soo dhaafay ama mucaaradka ugu culus ka mid ah waxaa ka mid ah ninkii la oran jiray xildhibaan Axmed Khaliif halkan aan ka salaamaya Axmed Khaliif saaxiibkay waa nin aan isku aragti ka ahayn qadiyadii sool nin hadaladiisu ka dhacdhacaan ma ahan Axmed Khaliif waa nin mataqaanay dadka Soomaaliyeed mataqaanay ku astaysan geesinimada runta in la sheego hal kala aragti duwanaado hal kala qabiil ahaado kamid ah wuxuu kamid yahay dadka maanta soo dhaweynay Muuse Biixi horeyna wuxuu u sheegay in Muuse Biixi uu yahay dibaax maalin dhaweyto wareysi laga qaado caafimaadkaagan dad badan baa hadal hayay oo xaaladda caafimaaded Hindiya u tagtay waxa la lahaa dad waxay sheegayeen in ishii la yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi ayaa ku hadal cadcada oo tiiba ku dhacday bal adiga dadka maxal leedahay Muuse Biixi libaax buu ahaa libaaxuna wuxuu dilay wax ma awriyo horta haddaan taada ku raacana aniga waa la iga horeeyaa يا كهرية أنا قد بدن باي كهرية واي وده يقدرنا واي ده عدد جدو عافمات قباه واي بور مدو عافمات قباه واي وضياشي وشير كيجا هاي قد حش صورنا بقى عافمات قباه واي كوي بور طفولي بقى في عن قد دي هبرت على عرقابة برع عيل فين وقشر طيبة عافمات قبتها كان عشان تدي لعقت دي بيسين وسعيد وجوه ريبة عافمات قباه واي أنا وحوم بقى رمبتي هذا بقى halkaasi markay joogto kooxihii Muuse Biixi la dagaalamay waa kooxaha ugu daran xilligan ka cabaadaya Cabdiraxmaan Ciro haddaan qabiil ka dhigno beelaha habar jeclo waxa la yirmeed maxaa ugu dambeeyay kan la sii shido shalay waxay soo bandhigeen ilaahay goroyacawl ka soo carareen afar nin waa looga dilay halkaasi waxayna ku soo laabteen xuduudahoodii iyaga oo markaas si cad u sheegay in Cabdiraxmaan Ciro qiyaameeyay uu ka dhiganayo xaabo dab lagu shito mataqaanay ii sheeg codkoodii iyo fartii ay siiyeen ay ku qasaareen beesha Samaro 200,000 oo qof oo cod ayaa la sheegay inay u codeeyeen ninka la yiraahdo Muuse Biixi waa kuwa natiijada ugu fiican ka helay Cabdiraxmaan Ciro codayntoodii 30 qof baa maanta laga dilay 200 qofna waa laga dhaawacay muddo 24 saacadood gudahood ah waxay kamid yihiin dadka soo dhaweynayo oo u tagayo Muuse Biixi waa hal sano gudaheed ilaa wadan beerka u dhiman beelaha ciida gale waxay ku qasaareen karxajisnimadii lagu ololeeyay laba nin baa waxay u ahaayeen dad u hadla miidiyaha ama afkaartooda cabira labadaas ninna waxay ahaayeen labadii shakhsi ee la oran karo waxay ka dambeeyeen fashilintii Muuse Biixi xukunkiisa waana Liibaan Cadaala iyo nin la yiraahdo Iisheeg Jaamac Shabeel maanta xabsi buu ku xiran yahay Muuse Biixi uma quuri jirin xabsigaasi ninka la yiraahdo Liibaan Cadaala guud ahaan dalka wuu isaga baxsaday wuu cararay maanta waxaan arkaynay Suldaan Daawud oo asagana halkan aan ka salaamayo maadaama markii shirkii la tagay magaalada dawlad deegaanka ka tirsaneed ugaaska dhawaan la isugu tagay magaceedii baa iga maqanay qabri dahare uu si cad uga sheegay in beelaha isaaq ay deegaanadooda ku ekaanayaan midnimada Soomaaliyeedna laga shaqeynayo si cad u yiri waa aragti saliim ah waana la soo dhaweynayaa uu ka mid ah dadkii maanta soo dhaweynayay Muuse Biixi isagoo ay wakiisheen beesha ciida gale oo ku khasaartay taageeradii ay siiyeen Cabdiraxmaan Ciro haddaba halka markii joogto markii Cabdiraxmaan Ciro waa lagala wareegay masraxiyadii Soomaaliland dad badanna waxa ay xilligan aaminsan yihiin oo ay qiimeynayaan in Muuse Biixi uu weli haysto taageeraan inaba caadi ahayn gudaha maamulka Soomaaliland sidoo kalena Cabdiraxmaan Ciro xukuumadiisu ay mar walbaba u sameynaysa Muuse Biixi taageero hor leh in uu si hayo halka markay joogto markay waa xaqiiqo weeyo waxaan la iska ina tari karin waana run kharaar weeyo annagu haddaan nahay beelaha harti Muuse Biixi uu namideeyay
annaga muuse biixi wuuna mideeyey wax dhiba nooma geysan muuse biixi wuuna mideeyey annaga wax dhibaato ah oo uu noo geystay haba yaraatee ma jiraan ragguna waa isdili jiray waxaan u naqaanaa annagu muuse mideeyaan u naqaanaa cirana waana kala firdhiyey annaga marka waxay dantayadu ku jirtay si joogitaankii muuse biixi haddii cabdiraxmaan ciro uu hartiga kala firdhiyey waxaaba la oran lahaa waa nin ka shaqaynaya siyaasadda somalilan isaaqii buu sii kala firdhiyey qadiyadihii somalilan buu ku xadgudbay mataqaanaayey dadkii cadowga somalilan ku ahaaba maanta waxay joogaan hargeysa beelihii samaroon oo la rabay haddii beelihii harti ay maamul samaysteen in la ilaaliyo oo mataqaanaa saysan mataqaanaayey maamulka uga bixin dhib aan loo geysan xasuuq buu u geystay genocide markaas cabdiraxmaan ciro kala firdhinta hartiga siyaasaddiisii ma ahayn inay hartiga keliya ku aadan tahay xataa wuxuu hilfaha u qaadaya waxa la yidhahdo somalilan inay sii jirto laakiinse muuse wuxuu ilaalinaya waxa la yidhahdo somalilan inay sii jirto dagaalka uu hartiga la galayna wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed oo uu ku ilaalinayay xuduudo ay somalilan dastuurkeeda ku qoran ciro intaas midna ma ilaalin haddii siyaasiyiin hartiga uu qayb heshiis la galay waxaa la rabay inuu beelaha samaroon iyo isaaq iyo ciise isku sii hayo kama sii shaqayn maantay waxaad markhaati ka tihiin gobolka awdal iyo salal xiisada ka taagan waana go'aanadiisii laba carablaynta laba codlaynta ahayd ee ka dhalatay markaas waxaa mar walba somalilan u fiicnaa muuse biixi waayo isaga xataa kuwuu la dagaalay mabaadii buu kula dagaalamay nacayb uu necab yahay ma ahaysan ahayn laakiinse wuxuu isku haysay intii kale cira ma isku haya haddiiba muuse lagu eedaynayo gobolka sool baa gacantiisa ka baxday cabdiraxmaan ciro gobolkii awdal gacantiisa ma ku jiraa maantay maxaa ka soconaya hilfuu u sii qaaday wixii la oran jiray somalilan halkaa markay joogto markay waxaan ku soo gunaanadaya warbixintayda diid ama yeel muuse biixi waa mid ka mida kuwa ugu shacbiyadda badan soomaalida madaxda soomaalida waxaana ka horeeya madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka saamayn iyo taageero badan yahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro sheekh shariif xasan cali khayre farmaajo aandhehe ii sheeg sheekh shariif xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur mustafa cagjar iyo dhammaan madaxda kale ee soomaalida waa qofka kaalinta labaad ku jiro kadib madaxweyne farmaajo sababta madaxweyne farmaajo uu shacbiyad batay oo muuse biixin u noqday kaalinta labaad waxay dadku ku sheegeen in farmaajo uu yahay xabiibul malaayiin oo soomaalida dhan ay jecel yihiin muuse biixina wuxuu galay kaalinta labaad marka soomaalida jecel muuse biixi bal qaybtoos aragtida nugula wadaaga ilaa lama oran karo waa reerkiisa habar awale marka soomaalida kale dhan habar awal baa ka tira badan ma garan karno meesha uu shacbiyadda intaas la eg ka keenay waana su'aal soo diin mudan aad baan idin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan